حسنو habar waalanoo hinaastaa ku dhasho hooyadaa waa naloo sheegay hooyadaa waa naloo sheegay inay habar waalanoo aabbaha la guursado mar allaalo markuu aqalka kala seexda tidhaa ka ku soo baydh ka ku soo baydh ka ku soo baydh inay ku dhashay waanu ognahay xasan duuflow raggii waaweynaa jabhadaana waanu adeertan waxba laga qaadi maayo adeertan waa lagu daalaya ismaaciil cumar gelle waxaanu sheegaya annagu raggii waaweynaa SNM baanu jabhadaan kugu hubay sidii SNM Itoobiya u hubaysay waxba naga qaadi maysi ama durbaantun ama waxba tun ma saaraanisid meeshaanu leenahay ismaaciil cumar geelena macaaridkii Jabuuti meelay galaan iyo goday galaan waayo war annaga dal idiin hayna annaga sidii SNM idin hubaynayna noo kaale xadka kaale taajirra ku wareegaysan meelaha ku gabartaan iyo buur iyo kulayl midna waxaanu sheegayaa buntland hambalyeynina hambalyo لاس عنو نحن ورن بهنت وميل قاعد ما يسأل ولا اعتراف تنادر كسر راع شيدان هدون اعترافه راعنا نق ujeedada iyadu ma ahan inaynu aflagaadeyno madaxweynaha qaranka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laakiin waa gudbinta fariimaha nooca kuwa oo kala muwaadinkan ka soo jeeda ee Soomaaliland wuxuu si toos ah u aflagaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo dhinaca kale aflagaadinayo madaxweynaha jamhuuriyadda walaalaha nahay ee Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele dhinaca kalena hambaliyo ugu dirayo ee Puntland SSC qaatumuna uu sheegayo in haddii iyagu sheedaan oo ictiraafo xitaa ay diyaar u yihiin inay sheedaankaas ay taabacaan wuxuu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay gebi ahaanba qof fashilan Puntlandna uu ku sheegay inay tahay mid iyagu ay u baahnayeen isla markaana u dirayo hambalyo haddaba fariimaha kala duwan ee aflagaadada ee lagu aflagaadeynayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba dowladda Soomaaliya miyaysan gaarsiinin fariimo nabadeed oo isla markaana ka hadlaysa dowladnimada iyo nidaamka system ee shacabka Soomaaliland su'aashaas waxaa laga rabaa adigu inaad isweydiisid haddaba shacabka Soomaaliland waxay sheegeen in qarankoodii uu tagay isla markaana diyaar ay u yihiin inay hadduu sheedaan oo ictiraafo in sheedaankaasi ay raacaan isla markaana walaal ay ka dhigan doonaan beddelka dad isku sheegay inay Soomaali yihiin amaba ay siin waayeen xitaa u ogolaan waayeen inay iyagu ay go'aan tani waxay muujinaysaa sida cad ee go'aanka shacabka ee Soomaaliland ay ku taagan yihiin weli iyadoo si la mid ahna ay xaqiijinayso mowqifka iyo mabda'a ay ku siman yihiin shacabkaasi ee Soomaaliland dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegaa inaysan weliba fariimo ka gaarsiinin shacabka Soomaaliland iyadoo dhinaca kalena dhowr mar muuqaalo laga baahiyay mid ka warbaahinada dalka lagu xusay in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin walaalo isla markaana waxa la isku haysana ay ahaayeen siyaasadda oo kaliya taasina la iskugu baahiyaa in la iskugu soo dhaweeyo shacabka walaalaha ee labada dhinac xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo hogaamiyo iminka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay dhowr mar ku dadaashay sidii heshiis rasmi ah loo gaari lahaa iyadoo teeramkii hore uu joogay ee dowladda Soomaaliland Muuse Biixi ay isugu tageen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha xilligaasi ee Soomaaliland Muuse Biixi ee dalka Jabuuti halkaas ay ku kala saxiixdeen heshiis rasmi ah isla markaana loogu talagalay inuu socdo ilaa in muddo ah kaasoo loogu wada hadlayo sidii Soomaaliya iyo Somaliland mar kale ay isugu soo dhawow lahaayeen arrintaas ayay u muuqatay mid soo dhawaanaysa isla markaana ay dib u midoobi doonaan ee Soomaaliyeed muddo kadib waxaa la arkay iyadoo ugu dambeyntii wixii heshiiska halkaa lagu saxiixay Jabuuti ay noqotay wax feega oo aysan socon kari weysay ugu dambeyntiina soo Muuse Biixana oo Jabuuti Itoobiya uu ka doontay ictiraafkii muddadii dhowrka sano 30 sanadood Somaliland ay raadinaysay isagoo u saxiixay in badda Somaliland ay qaadan karto Itoobiya halkaas waxaa cirka isku sii shareertay colaadii u dhaxaysay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland taasoo sababtay in markaa ay sii xumaato xaaladda mar kale
shacabka kala duwan ee magaalada muqdisho ku nool iyo guud ahaan ee dalka soomaaliya fariimaha ay dirayaan waxay saameyn ku yeelan karaysaa amaba saameynaysaa shacabka ee somalilan ku dhex nool, kuwaasoo ay si khaldan u fahmayaan in shacabkani ay yihiin kuwo khaldan amaba ay doonayaan keliya inay gumaystaan ee somalilan. Haddaba shacabka somalilan waxaa gaaraya fariimo noocyadooda kala duwan, iyagiina waxay ka jawaabayaan taa iyadoo la mid ah. oo dad badan ayaa isweydiinaya haddii shacabka soomaaliyeed islamarkaana magaalooyinka kala duwan sida caasimadda muqdisho, baydhabo, kismaayo haddii ay ku hadlaan hal af oo ah shacabka walaalahayaga ee somalilan, amaba fariimo qurxoon haddii ay diri lahaayeen ay suuragal noqon lahayd inay soo jiitaan shacabka somalilan. Laakiin taa beddelkeeda hal jawaab oo keliya ayay shacabka soomaaliyeed ay ka bixinayaan fariimaha kala duwan, taasoo ah somalilan waa gobol ka tirsan ee soomaaliya, halka siyaasiyiinta kasoo jeeda ee somalilan ay shacabka somalilan ka dhaadhicinayaan in soomaaliya ay tahay cadow, islamarkaana dowladda oo laftirkeedu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo inay cadow ku tahay madax banaanida ee daleed ama dhuleed ee somalilan.